كسر دوادا سعجيبة تولا يا وحكونولا نين بيرولا حاسكي سيء الميرو دلاي صدح ذا سقف أو هاك ونولشوا ذا أدو فرحسن مالين أيا أضيجيو بيرت كشقينيا وحوهري دل يروسان قرا بيرت دحديدا وحو قانصد إنو سانقر كيرو قاتا قروقيسي isagoo ku duubay jeex yar oo mara wuuna qaatay isagoo uu lugayay dhankaayo gurigiisii markii uu gurigii soo gaaray waxa uu saangurtigeereed siiyay xaaskiisii si ay u xanaanayso saangurkeeru waxa uu badanaa joogi jiray xoolka ilmaha yar maalintii oo dhan isagoo ag fadhii jiray ilmaha yar xoolkiisa isla marhaantaasina aad u jeclaa inuu ku agareeyo ilmaha yar meesha joogo laakiin xaaska ilmaha yar dhashay kuma aanay kalsoonayn saangurka yar saangurka ninkeedu keenay waxayna inta badan ninkeeda ku dhigi jirtay maalin buu bahalkan yar ilmiheena cuni doona laakiin beeroolaha ilmaha yar dhalay wax taxadar kama uusan bixin jirin waxay xaaskiisu ku tiraahdo maalin ayay xaaska beerooluhu damacday inay aado suuqa waxayna ninkeedii u sheegtay inuusan saangurkaasi kaga tagin ilmaha yar waana ku waafaqay inuu la joogo ilmihiisa yar xoogaa yar kadib mid ka mid ah asxaabtiisa ayaa u yimi isla marhaantaasina ka dalbaday inuu la lugeeyo aabihii beeroolaha ma uusan haysan wuxuu qabto waana ku aqbalay ninkii inuu la lugeeyo waana uu raacay xoogaa ka bacdi xaaskii beeroolaha ayaa ku soo laabatay gurigii iyadoo markaasi timi saangurkii yaraa ayaa markaasi iyada kaga horyimi albaabka hore ee guriga talow maxaa dhici doona markaa gabadhii ayaa aragtay in saangurka yari uu ku leeyahay afka dhiig isla marhaantaasina aad u naxday waa ay oyday oo qaylisay waxayna u malaysay in saangurka yari uu cunay ilmaheedii yaraa ee ay guriga kaga tagtay gabadhii oo xanaaqsan ayaa waxay soo qaadatay salad isla marhaantaasina waxay ku jijibisay madaxii saangurkii yaraa waa uu dhacay uuna ooyay isagoo isla marhaantaana halkaasi ku naf waayay oo dhintay hooyada waxay makaankeeda kugu soo qaaday 9 bilood oo dhameystiran Allah maxay qisadan xanuun badanta hooyadii waxay aad u soo oroday iyadoo degdegsan dhinacii ilmaheeda bal inay wax gaadheen ilmaheedii yaraa ee ay xoolka kaga tagtay nasiib wanaag waxay heshay ilmaheedii yaraa oo u hurda si nabad ah xoolkiisii wayna u qaadan weyday oo oyday farxad oohina intaa ka bacdi waxay ogaatay in masweyn oo hurday oo dhiig badan ka baxay isla marhaantaasina dhintay maska halka jiifay ee dhintay waxa dishay saangurtii yareed ee ay disay xaashka waa ayna xaqiiqsatay in saangurtaa yari ay difaacday ilmaheeda yar xaaskii beeroolaha ayaa ku calaacashay ilmahaygii yaraa ayaa dii badbaadisay aniguna adiga ayaan ku dilay waxay aad isugu dayday inay badbaadiso saangurkii yaraa laakiin macquul ma aysan ahayn oo waa uu dhintay waxay aad uga sii murugotay arrinkaasi markii uu beeroolihii ku soo laabtay guriga aad ayuu uga xumaaday arrinka meesha ka dhacay isagoo u qaadan waayay markii uu beerooluhu soo noqday waxa uu xaaskiisa weydiiyay sababtay ugu degdegtay arrinka noocaasi oo kale ah haddii aad hubsan lahayd intii aadan dilin ka hor saangurkeena yar waxa uu ahaan lahaa mid inala jooga innaga duluucda sheekadu waa intaadan falin ka fiirso waxyaabaha qaarkood laguma degdego ku xidhnow fakar today subscribe share like and comment wabillahi tawfiiq